waxay u dhimatay gaadhiga odaygeeda inay qaadatay darteed. odaygeeda gaadhigiisa ka xaysatay iyadoo meel u socoto rabta inay meel kaga soo noqoto kadibna waaba la dilayba sababta gaadhiga odaygeeda inay qaadatay bayba u dhimatay. Xasnaa Mujaahid waxay ahayd gabadh Liibiyaana, gabdhahan waxay ahayd designerka waxaan la yiraahdaa waxay sameyn jirtay cabaayadaha iyo waxaas dharkaas gabdhuhu ay ku labistaan. 2 sano ka hor bay guursatay, gabadh yar buu Ilaahay ku arsaaqay oo hooyay ahayd. gabadheedu aad bay u yartahay waa ilmo yar oo radiica 4 bilood un bay jirtaa. xasnaa 22kii bishan marka aynu hadda ku guda jirnay November 22keedii jimcihii soo dhaafiyay waxay qaadatay gaadhiga odaygeeda iyadoo doonaysa inay meel kaga soo noqoto. cunugtii yartaayna way ka tagtay. xasnaa iyadoo meel jida maraysa waxaa ka soo horbaxay marka dad hubaysan oo gaadhigeedii gaadhi ku agooyay, rasaasba gaadhigii ay ku jirtay oo lagaga qaaday, gabadhii xabadaha ku dhacay. kadibna waxay isku dayday inay macararto ay gargaar dalbato, gaadhigii bay ka soo degtay iyadoo dhaawaco aad u dhiig baxaysa. dhulka markay ku dhacday wax yar kadibna way dhimatay. dad meelaha ka agdhawaa dadkii gabadha xabadaha la dhacayna way carareen ee dhaawacay. kadibna xabadihii baa sababay dhimashadeedii, dadkii gabadha dilay way carareen, dadkii meelaha ka agdhawaaba gabadhii waxay u waceen marka ambulance markay imanaysayna gabadhu waxay ahayd mayd. Ilaahay u naxariistay. Xasnaa marka sidaas ku dhimatay, gabadh yar oo 4 bilood oo bes jirtay inay ka tagtay. dadkii gabadha dhibka u geystayna markay carareen la dabagalay la isku dayay in la soo qabto meelaha ayna dawladuba ka talinin bay aadeen. magafayaashu meelaha ay ka taliyaan halkaasayba ka dhaceenba. laakiin waxaa la sheegay sababta gabadhani ay u dhimatay wax cid ahoo dakana kala dhaxaysay may jirin, laakiin odaygeeda wuxuu ku jiraa dawladda oo ka tirsan dawladda. dadkan gabadha dilay marka waxay rabeen odaygeeda. gaadhiga markay xabadaha ku furiyeen waxay u maleynayeen odaygu inuu ku jiro. gabadhu marka gaadhiga ay qaadatay sababkiis ayay u dhimatay. Ilaahay ha u naxariistay. odaygeedana kulli saacad baa u dhinayd. odaygaaga hadduu dakana ku jira gaadhigiisa isku qaadan gabadhay ka digtoonow.